بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبضي داود يالله مركبة iyo qisooyinkeenii taxana ahaa. Haddaba qisadan maanta waxay ku saabsan tahay gabadh cafisay ama la saaxiibtay wiilkii dilay walaalkeed. Haddaba qisadan waxay ka dhacday dalka Mareykanka. Haddaba qoyska Dennis oo dhalay Paul ayaa waxay maxkamadda yimaadeen waqti ay ka socotay dhageysiga dacwadda xukunkeeda ay sugayeen, taasoo lagu filinayo ninkii dilay inankooda Paul oo loo magacaabo Ronald Floyd. Haddaba dilkan ayaa waxa u dhacay Paul iyo Floyd ayaa waxay kala iibsadeen agab, taas oo markii dambe Paul uu bixin waayay lacagtii. Kadibna Floyd ayaa intuu gaadhigiisa qori kala soo baxay wadnaha xabad kaga dhuftay. Haddaba dilkan ka bacdi Dennis oo ah gabadh la dhalatay Paul ayaa mar walba waxay ku dadaalaysay in xabsiga loo khafiifiyo, ugu yaraan lagu xukumo xabsi daayin, halka aabaheed James uu ka doonayay in lagu xukumo dil toogasho. Sababtuna waxay ahayd James wuxuu ahaa markii ay kala tageen Paul hooyadii iyo aabihii. Paul waxa ka haystay aabihiina dabeecad ahaan wuxuu ahaa nin aad u qalabsan. Haddaba dadaal dheeraada kadib waxaa la soo daayay ama ay isku dayeen in la soo daayo, xukunkana loo khafiifiyo Ronald Floyd. Ugu dambeyn way ku guuleysteen, waana laga aqbalay dacwaddaasi ay u gudbiyeen maxkamadda si ay u sameeyaan cafis. Haddaba Paul ayaa waxa uu ahaa nin aad qaali u ah yaraantiisii, kaas oo ka ganacsan jiray daroogada, qalqaalina ahaa yaraantiisii. Walaashii Dennis ayaa waxay ku andacootay ama ayse qoomamaysay in walaalkeed ahaado saaxiibkeed, kaas oo ay yaraantoodii meel ku soo wada kareen, walow markii dambe waa aabihii ka haystay oo uu korinayay. Haddaba Floyd ayaa xukunkiisu qaatay muddo 36 sannadood ah. Kadib waxaa loo oggolaaday cafiskii, sidaas ayaana lagu soo daayay. Dennis ayaa waxay noqotay markii dambe gabadh ka shaqaysa tabarucaadka iyo jeelasha ku yaala dalka Mareykanka. Haddaba daawadayaal, ficilka ay sameeyeen qoyskani ayaa ah mid aad qariib ugu ah marka la eego qof ehelkaaga ah oo la dilay, taas oo qofkii dilay ay aad u adag tahay inaad u fidiso wax naxariis ah, balse tan ayaa noqotay mid aad loola yaabo. Runtii sharaf iyo karaamana u noqotay qoyska. Marwo Dennis oo ahayd dhakhtarad ayaana dadaal dheeraada u gashay sidii ay xabsiga u sii deyn lahayd ninkan dilay walaalkeed, iyadoo aad uga xun weliba dhimashada walaalkeed. Haddaba daawada intaa waxaan ku soo gabagabaynaynaa qisada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.